iskuulka Al-Furqaan Schools oo kamid ah iskuulada ku yaala magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland isla markaasina kamid ahaa iskuuladii la aasaasay markii dalka lagu soo noqday ayaa waxa uu xaflad ballaaran u qabtay ardayda kaalmaha hore ka gashay fasalada kala duwan ee uu ka kooban yahay iskuulka Al-Furqaan Schools iyo ardayda ka qalin qoratay iskuulkani xafladani oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa lagu qabtay hoolal kamid ah hoolalka iskuulka Al-Furqaan Schools ku leeyahay qaybaha kala duwan ee iskuulku ka kooban yahay xafladani ayaa loo qabtay sanad dugsiyeedkii 2018 ilaa 2019 xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dugsiga Al-Furqaan Schools macallimiin waxgarad culimaaddin marti sharaf kale waalidiinta ay ardadoodu ka aflixeen iskuulkani ugu horeyntii waxaa xafladda lagu furay aayaadka Quraanka Kariimka oo akhriday ardayad kamid ah ardayda wax ka barata dugsiga Al-Furqaan Schools أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا sideed guul ku gaari kartaa waa qodobka labaad ee ka hadlayo guul waxaad ku gaari kartaa waa inaad naftaada ugu horeyn aad ku kalsoonaato adigu naftaada haddaanad ku kalsoonayn guul gaari maysid waa inaad ilaahayna isku xidhaa haddaad ilaahay isku xidho waalidkaa ka ducaysato guusha iyo hamiga aad leedahay waad gaaraysaa dhalintii barbaartaay dhidibadii aqoontaay dhulka tii dhexlaysay dhaayihii dalkaygow maamulkiiyo macalinkow marka hore salaan wacan salaan dhiibsano marka hore salaan dhaba salaan dhowsanoo mudan salaan aadu dhumuc weyn salaan dhuuxa hoosiyo kuwa dhiigga qaadiyo sanbabada dhexdoodiyo lafta dhabarka raacdiyo seedaha isku dhuumiyo dhuuxiyo maqaarkiyo kasha aad ku dheertiin kugu soo dhoweeyeen dhalin yahay guddoonsada ashcalta ruuxaka fi laafaaqi misbaaxa ورحت تزرع في الأوطان أرواحا ورحت توقد في الأبدان مفتخرا عزيمة تغمر الأكوان إسباحا ورحت تبني منارات العلا شهبا وتوقد الحلم آمالا وأفراحا geesta kale iyaguna waxa hadalka iska daba maray marti sharaf kala duwan oo lagu soo casuumay xafladani ayagoo dhiirigeliyay ardayda wax ka barata dugsiga Al-Furqaan Schools waxa hadalladoodii kamid ahaa macaasida iyo munkaraadkana aynu ka taxadirnayno iska ilaalino dhammaanteen aynu wada noqono maadaama aan ku hadlayo afkii al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar inaynu noqono qaar xumaanta iska wada reeba wanaagana is wada amra ilaahay baa subhanahu wa ta'ala sidaa inagu amaanay ummadda nabi maxamed hadii aynu nahay kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومد أدون كان لكينات تيغو خير كبضنيت بضاهدين بو رب سبحانه وتعالى أود نقطين وحتكون نقطين وناقات سفرتان حمانا واتكريبتان سيدا سيوغد ولا ليال حمانتا يم معاسدا يم منكراتك ووحي عقوباتك كدشان اي امضايكو بابaan اي او سبب نقضة عذاب آخرة أي عقوبة الدنيا سبب النقطة. كلي سيدا الله تلمامي حفلة ما أنت واحد دارنته إن لقوم ما موصو لقونا إكرامه أرضي دي كالمها أسوهوي دكسيغا الفرقان runtii aan dareemayo farxadda ay dareemayaan inay aad u sarreyso waxaynu kula farxaynaa farxadda waxaynu dareemaynaa farxad iyo reyn baynu dareemaynaa ardaydaasna waynu hambaliyeynaynaa waxaynu leenahay hambaliyo sheegayaa khayr Allah idin siiyo qodobka kale muhiimka waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala goor baryadiisa barta qofka ilaahay barya ma fashilmo inaga waxa jirta marar badan oo isna waxa sameeyo wallahi way fiican tahay wallahi barashadu way fiican tahay haddana waxa ma qabsanaysid waxa weeye ilaahay kaalmadiisu hadaan kula soconin waxa ma qabsanaysid sida daraadeed goor walba waa inaad ilaahay baridaa qofka ilaahay barya ma fashilmo waana daa'iman goor kasta marka tukato ilaahay u caawi ilaahay wax barashada igu caawi ilaahay qof muslima iga dhigo wanaagsan iga dhig ilaahay cibaadada igu kaalme ilaahay wanaaga igu kaalme waana tiraahdaa qof hada ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala ducadiisa aad badiso
waad guulaysanaysaa ducadana aada u badiya adeer khayr allah idin siiyo ducada waa inaad badsataan geesta kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga alfurqaan schools maxamuud maxamed nuur isagoo ka sheekeeyey taariikhdii uu soo maray dugsiga alfurqaan schools waxaa hadaladiisii ka mid ahaa haddii aan dib ugu noqdo taariikh sooyaalkii taariikheed ee dugsigani waa dheer yahay muddo dheer wuxuu ahaa dugsiyadii lagu bilaabay waddanka markaynu ku soo noqonnay waxa uu ka bilaabmay markii hore qayb faarax omaara meesha dabeedna laakiin aasaaskeedii dambe wuxuu ahaa qaybtan inaga soo horjeeday ibtidaa'iga qaybtaasi waxaan ku bilownay ama lagu bilaabay 6 fasal oo ibtidaa'i ah waxa markii dambena looga gudbay dugsi dhexe markii dambena waxa looga gudbay dugsi sare oo ah qaybtan aynu fadhino ee fooqa ah oo runtii iyadana ay xusid mudan tahay inay dhiseen hay-atul qarn al-afriqi dhulkana ay bixiyeen maxamed xawaadle madar waxa weeyaan imika saddexdii qayboodba waynu ka koobanay dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare difcadan maanta aynu fadhinaa waxa weeyaan waa difcaddii 15aad ee ka qalin jabisa halkan haday tahay dugsiyada sare eedharkuna waa daba socdaan marka ardaydii halkan midhihii aanu ka saaray markii ay jaamacadaha ka soo noqdeen xilal bay qaar xataa ka qabteen dowladda oo imikana qaar ka hayaan qaar waa jaamacadahay ka dhigaan qaar waa dhakhaatiir qaarba waa waxay noqdeen arday fara badan oo halkan ka soo baxday oo runtii xusid mudan oo ayagu ahaa ardaydii halkan ka qalin jabiyey dugsigan alfurqaan runtii iskuulkan waxaa dhidibada u aasay oo taariikhdeeda inta badan leh ilaahay khayr ha siiye inaynu u ducayno weeyaan waa sheekheenii sheekh cabdilaahi cabdi cali ugu dambayntii waxaa halkaasi jaayisada lagu guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka gashay fasalada kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsiga alfurqaan schools naasir cabdulqaadir cabdiwahaab naasir talasame iyo sawir qaadashar cabdirashiid daahir fahaye telefishinka caalamiga ee badda 24 TV magaalada Hargeysa